marka sida iyagu maryaa ula qabsadeen oo kale anna ula qabsaday koodhadii wana astaantaan ugu talagalay maalinta hadii ilaahay ka dhigo dalka saa loogu tiraafo inaan wax ka siiyaan marka waxa doonaysa maanta wadanka la ictiraafo in adiguna dharka aad xirato inaan anaguna inta sare markaa dhag ka dhigaabaan doonayaa way reer Hargeysa badan markii ku arkaan adiga oo qaawan oo xagga sare aan dharka xidhnayn maxay ka filaan ma say warka horta birta weynaa kaaga warbixiyo waa astaantii calanka koodhadii markaan doonana calanka waa soo suraa markaan doonana waa ka tajiya anigu mucaaradna ma noqdo muxaafidna ma noqdo xusbiyana ma raaco koodhadii laakiin mar walba jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sirreynteeda ayuu ma jecelahay taasana raaca xusbada mucaaradka waxaan leeyahay ummadda codka ka doonaysaan iyo sidii ay u beeran lahaydeen falowgeeda galo dalkana lix jecel kala haado waxyaalaha hoosta ka wada warway la iska daayaan leeyahay halkan barbarkayga waxa taagan Khalid Maxamed Xaashi oo inta badan dadka reer Hargeysa ay yaqaanaan isla markaana jidadka magaalada Hargeysa lagu arkay isaga oo jirka qaarka sare aan dhar ku xidhnayn dharna aan xidhan bal markaa waxaan weydiin doonaa sababta keentay in qaarka sare jirkiisa uu dhar u gashan waayay bal Khalid soo dhaw marka hore horta magacaygu waa Khalid Maxamed Xaashi ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan dadka reer Hargeysa iyo dadka kale magacayga iyo muuqaygaba garanayaba aad baan u salaamayaa inta ka baad waxaan leeyahay niyow su'aasha horta horena waan uga yara jawaabay koodhada laakiin in badan bay ugu soo noqnoqotay laakiin dadku mar haday weydiinayaan maadaama dimuqraasi dadka weydiintoodina ay badatay qaarkoodna aanay ogeyn waxaan leeyahay horta waxaan aniga waa dimuqraasi natural la qabsaday dabeecadaydii aniga marka sida iyagu maryaa ula qabsadeen oo kale anna ula qabsaday koodhadii marka maaha wax weyn oo dimuqraasi la sii buunbuuniyaa ama wax weyn laga dhigo dimuqraasi koodhadii wana astaantaan ugu talagalay maalinta hadii ilaahay ka dhigo dalka saa loogu tiraafo inaan wax ka siiyaan marka waxa doonaysa maanta wadanka la ictiraafo in adiguna dharka aad xirato inaan anaguna inta sare markaa dhag ka dhigaabaan doonayaa way reer Hargeysa badan markii ku arkaan adiga oo qaawan oo xagga sare aan dharka xidhnayn maxay ka filaan ma say warka reer Hargeysa horta intooda ugu badan way taqaanaa koodhadii xurmayn iyo wanaag iyo soo dhaweyn wanaagsan mar walba waan kala kulmaa aad iyo aad noonu salaamaya anna waan hambalyeynaya waxaan leeyahay mar walba aanu maadaama ciyaar Hargeysa hay nin waliba ciyaalka Hargeysa jooga iyo dadka reer Hargeysa nin waliba way ku aqliyeystay marka nin aan garanay male ilaa ciyaalkeena way garanayaan cid walba doon isku wanaagsan aad dadka maxaad kala kulantaa ma jiraan dadka qaar ka yaaca marka ku arkaan adiga oo aan dhar xidhnayn wadadka magaalada hayn laakiin anigu lama sheekaysto koodhadii zero psychology-na waxbaan u fahansiiyaa waan dejiyaa maskaxdooda waayo asismankii maskaxdooda aaminsan tahay baan ka saaraa si caadi ah baan dadana u dejiyaa marka dambana asxaab baan iska noqonaaba way Khalid waxa la arkaa inta badan adiga oo bir weyn gacanta ku sita taaqudheeda ma la oran karin dadku way ka cabsadaan markay ku arkaan horta birta weynaa kaaga warbixiyo waa astaantii calanka koodhadii markaan doonana calanka waa soo suraa markaan doonana waa ka tajiya anigu mucaaradna ma noqdo muxaafidna ma noqdo xusbiyana ma raaco koodhadii laakiin mar walba jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sirreynteeda ayuu ma jecelahay taasana raaca birtana in badan oo aan aqoon way jirtaa laakiin marka aan u faahfaahiyo okay ayaa ku dhuftaan hay way ugu dambeyn dadka fariinta u dirayso waxaan leeyahay aniga horta deemka in aniga uga soo jawaabay dimuqraasi fariintan dadka u dirayaan waxaan leeyahay dadka wixii jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aadna waan u salaamayaa waxaanan u sheegayaa dalkan ictiraaf ku soo dhow yahay loo dulqaato koodhi waxyaalaha bushaaradahan iyo waxaan dalka ka jiraana inagoo kaliya ma aha dunidii oo dhan bay saameysay way dhaqdhaqaaqyadii dunidii oo dhan baa taagan laakiin waxaan leeyahay dadku ha dulqaataan haystijiyaan xusbada mucaaradkaana waxaan leeyahay ummadda codka ka doonaysaan iyo sidii ay u beeran lahaydeen falowgeeda galo dalkana lix jecel kala haado waxyaalaha hoosta ka wada warway la iska daayaan leeyahay